بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شعب لكن بس walba maqalkiisa gaari maalo wanaagsan kusoo dhawaada Royal Talent Sports qodobada ama qodobka maanta ciyaara ugu xasaasiin waxa kamid ah hordhaca Brighton vs Chelsea oo caawa saxiixadeeda cusub tijaabinaysa iyo safafka macquulka ay kusoo gali karaan kooxaha Premier League Chelsea iyo Brighton of Albion ayaa caawa ku hardami doona garoonka Amex Stadium caawa oo Isniin ah labada kooxood ayaana eeganaya inay mid walba ay gool ku bilaabato Blues ayaa booska afraad kala baxday kooxda Leicester City xilciyaareedkii hore halka kooxda Brighton ay ku dhameysatay kaalinta 15aad kala sareynta horyaalkii hore kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Chelsea ayaa caawa tijaabinaysa inta ugu badan saxiixadeeda cusub jamaahiirta Blues ayaana filanaya saxiixadooda cusub inay si rasmi ah ama si wacan ay ugu bilowdaan ogeysiiska kulanka tartanku waa Premier League taariikhdu waa 14 September 2020 saacada ama bilaabashada dheesha saacada waa 4 saac habeenimo xilliga geeska Afrika garoonka American Express Community Stadium garsoorahoona waa Carrick Boston wararka kooxaha wararka ugu weyn maanta laga warinayo waxa kamid ah saxiixada cusub ee Brighton of Albion Adam Lallana ayaa eeganaya inuu ku bilowdo kulankiisii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League tan iyo bishii December sanadkii 2019 halkaas saxiixada qaaliga ah ee reer Jarmal ay ku soo wada la soo siixatay Chelsea Kai Havertz iyo Timo Werner ay safanayaan kulankoodii ugu horeeyay ee Premier League halka Hakim Ziyech iyo Ben Chilwell ay dhaawac ka qabaan ay dhaawac ku maqayn halka Thiago Silva uusan taam ahayn laakiin Christian Pulisic iyo Cesar Azpilicueta ayaa ka soo baxay dhibaatooyinkii dhanka murqa ahaa oo la dhibaatoonayeen xaqiiqooyinka ciyaarta guusha kaliya ee tartanka rasmiga ee Albion ay gaartay ayaa 14 ku dayday oo wajahday Chelsea ay kaga timid FA Cup-ka oo ka dhacay bishii Janaayo sanadkii 1993 waxaa la leeyahay guusha kaliya ay gaartay Albion ayaa ah 14 kulan ugu dambeeyay waxa uu dhacay kulankaasi 1933 Brighton ayaa guuleysatay tartanka kulanka ugu horeeyay ee horyaalka xilciyaareedkii isku xiga markii ugu horeysay tan iyo kala ciyaareedkii 2010 aan shaxaha rasmiga ama shaxaha macquulka ee kooxaha ku soo gali karaan aan ku bilaabnay kooxda Chelsea ayaa ku soo galaysa 4-2-3 oo ah goolhayaha Kayba Asbalbalaga Zuma Rodriguez Alisson Jorginho Kante Havertz Monti Odai iyo Werner halka kooxda Brighton ay ku soo gali doonto goolhayo Ryan Brown Drank White iyo Volden Bissouma Boba iyo Kropp Tosun Lallana iyo Moni ay ku soo bilaaban kartaa تعدي أنت مقالك